arinta ugu la yaabka badan ee maanta Soomaaliland ka taagan waxay tahay iyadoo madaxweynihii dhammaay wadanku xasaarka wadanka ku cuna duuban yahay ayuu haddana dadkii ku caraananaya maxaa xasaarka loo hormari waayay haddaba sidoo madaxweynuhu ugu cuna duuban yahay xasaarka wadanka 5 sano ka hor madaxweynuhu markii uu xilka yimid beeraleyda Soomaaliland dhibaatada ugu weyn ee haysatay ee ay ula tartami kari waayeen beeraleyda kale ee wadankeena ku soo dhoofisa waxay ahayd shidaalka ayaa qaali ku ahaa maadaama oo Soomaaliland beeraleyda inteeda ugu badani ay beeraha mushin ku waraabiyaan mushinkaasna uu kaga baxo lacag fara badan oo ay shidaal soo siistaan sidaas darteed xukuumadda waqtiga waxa la gudboonay inay u samayso beeraleyda tamar kale oo shidaalka uga jaban oo ay biyaha ay beeraha ku waraabsanayaan ay ula soo baxaan ee dhulka hoostiisa ku jira ama inay beeraleyda shidaal jaban u keento si ay markaa beeraleydii wax soo saarkii ay u xoojiyaan labadaas midna ma dhicin waxa lagu qaaligareeyay beeraleyda shidaalka markii beeraleyda shidaalka lagu qaaligareeyay waxa dhacday markaa qaybo badan oo beeraleyda kamid inay awoodi waayaan shidaalkii qaaliga ahaa ka bacdi markaa ay bilaabaan inay dhirta jaraan oo dhuxusha shidaal si ay nolol maalmeed wala soo baxaan sidaas oo ay tahay iyadoo dhibaatadaas beeraleyda haysato shidaalka qaaliga wajahaya ayaa haddana waxa dekada berbera taagan laba markab oo shidaal sida bal haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay hanaankan uu madaxweynuhu ku wadaa ma horumarin karaan wax saarka wadalka bise waxa loo baahan yahay qorshayaal kale oo lagu horumariyo wax saarka wadalka bal haddaba taladaada iyo aragtidaada ka soo dhiibo sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo wax saarka wadankeena si aad bukan uga daawacato barnaamijyo kale oo xiiso leh fadlan like subscribe iyo share to waxagina